أنا كأني واحد صبينا من نقالنا وعم كوش يا جاه ترى بس أنا نفط هالمرة بحضايا لك دور رعد إيش كسر كرسي قرر ومين مرسا سلادنا كذا dhibaatooyin badan ayay ka maraan sidii kumanaan qof ugu madadaali lahaayeen baraha bulshada ku xeeran taasoo ka dhigtay kuwa lagu jecel yahay gudaha Puntland. Asad Abdirahmaan Axmed Abu Diyaabi iyo Nadiir Bila Cali Boos libaax kabeeye xilligan waxay ku mashquulsan yihiin duubista ruwaayado madadaalo ah sida ay ula wadaagi lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. daawadayaal majaajilistayaasha Asad Diyaabi iyo libaax kabeeye xilligan waxay ka mid yihiin majaajilistayaasha ugu fiican Soomaaliya kuwaasoo inta badan soo dhiga ruwaayado ka turjumaya wacyigelin iyo madadaalo filmaanta jira ani Asad hadda saa aragtayba iyo team baynu nahay teamka ayaga gabdhaha riwaayadaha nala jiro kala xamdi iyo kaxayso iyo xaliim saacdi iyo waa naga mid waa majaajilistayaal maxaa Cabdullaahi San Cado kale iyo waa naga mid marka waxa jira team kale ayaguna oo marar filmaanta ka soo muuqda oo tababar ahaan baa loo soo guriyaa marka waan u socdaa tababarku waana insha Allah waan jecelnahay wartiin maqal kubad baa socoto kooxihii u daraaba koobkii maanta dhaxyaal barisamaadkii jilista majaajilooyinka waxay ka mid ahaan jireen kuwa lagu jecel yahay iyagoo lahaa tiyaatar lagu soo daawasho tago balse waqtigan isbeddelka tiknoolajiyadda adduunka waxay kaliftay in ruwaayadaha majaajilistayaasha laga daawado baraha bulshada oo noqotay meel loo guuray. diyaaradii Soomaaliga ahayd force uu ka buuday أكشن كان محيطة عصان ديارد كبولة يعني كان هو نوع تبران مثلا يوم فضا ما نوض بعدو ساعة ولا صباح يا عدو سو قرق سو عدو قرق كذا يا بقرق كقبسنا يا ملتري كلاو يدلا ولا لا توس isagoo jecel inuu mar kasta madadaaliyo bulshada Soomaaliyeed. Asad Abdirahmaan Axmed Abu Diyaabi wuxuu maalin kasta si joogto ah waqti ugu bixiyaa waxyaabuhu soo bandhigi lahaa kuwaasoo inta badan la xiriira wacyigelinta bulshada. runtii xil hore bay u dhalatay inaan mataqaana aan ka soo muuqdo baraha bulshada oo aan wax jiro yaraantaydii markaan yarayn ciyaalka xaafadda oo shactirin jiray waxyaalo laakiin hibadeed waxaan soo bandhigay adiga 2015 horta waa run riwaayad badan baa sameeyay riwaayadaha ugu saameyn badan runtii waa riwaayad laftiga saameyn u yeeshay ee kamid tahay riwaayadda aadka loo jeclaa ee nin kasta gurigiisa baacac ku jooga riwaayadaas waa runtii riwaayadaha ugu saameyn badan bay kamid ahayd riwaayad kale oo rag muxuu jim ciila oo aan gabadha ku leeyahay maxaa meelaha ice cream ta lagu gaday jalaato u soo mari weeday wadi jimka soo hormaray riwaayadaasna riwaayadaha saameynta leh ku jidhay riwaayad kale waxa kamid ah ayaduna la dhaho soo dadku uma maleynayaan inaan jecelnahay wadi xabiib ilaa meeradaha taad sida maskabri madax soo dhibatid riwaayad kale ii kaxaysa ayadana la dhaho oo majaajilistaha weyn ee libaax kabeeye iyo xamdi ii kaxaysa ay gula jireen riwaayadaas la runtii saameyn bay yeelatay riwaayad kale oo waxa jira ayadana la dhaho walac iyo wareer asla saaxiibkay majaajilistaha weyn runtii aadka u jeclaa jilaanimadiisa Nadiir Bila Cali Boos libaax kabeeye ayadana uu la jiro riwaayadu marka aad bay u badnaayeen hadda waxaan sameynay laftigiisa film qaybta labaad noo maraya sana waa ka sheekayn doonaa qaabku ku yimid iyo waxyaalaha ula jeednay erahan waxa aan baxay 32 jir dadku inta badan wax isweydiiyaan asal 32 jir may 32daas waa foofareed number weey ana isticmaalaha runtii waa hal ku dhag aan leeyahay marka madda ma turjumayo macnaha loola jeeday meesha ka yimid sanadka ma sheegay yaa wax loo bixiyay 2003 meelahaas aan jeclahay nin Ibrahim la dhahay bixiyay saaxiibka ciyaarka xaafadda Salaahin waxaan taageeraan kooxda Arsenal wuxuu dheeli jiray kooxda Arsenal Diaby waa Faransiis kooxda Arsenal wuxuu xiran jiray lambarka labaad Abu Diyaabi waana nin sheekha oo xaafid quraan weey Nadiir Bile oo loo garan og yahay libaax kabeeye ayaa ii sheegay in jilitaanka riwaayadaha ay ku madadaaliyaan bulshada ka maraan dhibaatooyin badan riwaayadaha horta markii ay heshid qof macna sameeynaya oo jila ah
bay waxaagii muuqanayaan majaajilaysaha weyn asad abudiyaabi markii riwaayadaha badan oo ila soo jiray bay riwaayadahaygu inta badan macno sameeyaan hadda waxaa socda film asna saameyntiisa leh oo 1 week mid marayso midna uu 1 day marayo aad ayaguna kuwii hore aan muddo ka saameyn batay duubo riwaayada duubo waxaa la is oran karaa haddaaba ayadaaba dadku min cirif adduunka caalamka xitaa qurbo joog iyo iska wadaa qurbo joog iyo Soomaaliya dadku oo Soomaali ahayn baa daawada baa la is oran karaa riwaayad saameynteeda wadata weeye wan asbuuc been jidhaa waana film socda oo taxana ah ilaa part 8 gaaraya wana la baacsanaya inta ka hor dhicmaayo waxaan sameeyay majaajilaysaha weyn asad abudiyaabi baa wada waa u qorantaa Shamaakad Qaadir Jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garowe